بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامج كيني كوبعية كوبريتيف أما إسكاشتة كوبعية مقعي وعبد القادر عمر عبد الله إسكاشتة كوبعية وإسكاشتة صوماليات أو لو وذا سميهي وإسكاشتة أي كقيب بقادنيان دمان صوماليغا نول يميد كدنتي وإسكاشتة أي صوماليغا نول يميد كدنتي أي دالكوذا كوذا للسنايان وإسكاشتة صوماليغا نول يميد كدنتي أي كتاجريان waa iskaashato Soomaaliga nool horumar iyo baraare iyo hodantinimo u horseedayso waa iskaashato Soomaaliga marxuumka ahi ajir ilaa qiyaamaha soconaya u abuurayso isagoo qabrigiisa ku jira haddaba kobciye maxay hiigsanaysaa tirada ay hiigsanayso kobciye sanooyinka ugu horeeya ee labada sano ugu horeeya waa 1,000 qof oo waa 1 milyan oo qof oo Soomaali nool inay xubin ka soo noqdaan iyo 1 milyan oo Soomaali marxuumiin ah inay xubin ka soo noqdaan xubin kasta oo nool waxay bixinaysaa maalintii $1 isla markaana waxay $1 kale ka bixinaysaa qofka ehelkiisa ah ee dhintay ee ahbaabtiisa ah ama waalid ha u noqdo ama qaraabaha u noqdo ama qof uu jecel yahay ama saaxiib ayuu ka bixinayaa si ay qaybta sadaqa jaariyada hadhow aan sharxi doono ay u gasho maalintii kobciye marka waxaa soo galaya $500,000 oo dhinaca dadka nool ah iyo $500,000 dhinaca dadka marxuumiinta ah $1 milyan ayaa dakhligeeda maalintii uu noqonayaa sanadkii wuxuu noqonayaa bishii wuxuu noqonayaa 30 milyan sanadkii wuxuu noqonayaa 360 milyan marka kobciye waxay ku salaysan tahay hadaba dhismaheeda ay ku qotontaa 7 qodob ama 7 mabaadi ama principles oo ay horumariyeen ama ay sameeyeen qolo la yiraahdo International Cooperative Alliance ama dalada yani iskaashatooyinka caalamiga ah ee 1884 la aasaasay waxay kala saareen maxaa shirkad ah maxaa iskaashato ah maxaa uu kala saari karaa shirkad caadi ah oo dad badan ay leeyihiin iyo iskaashato oo dad badan ay xubno ka yihiin si loo kala saari karaa 7 qodob ay sameeyeen 7 qodob hadii mid kamid ah laga waayo iskaashato ma noqonayso hadii 7 qodob laga helana dhamaanteed waa iskaashato buuxda qodobka koowaad waxa waaye xubinnimada oo markasta furan oo qofka anytime uu ka soo qayb gali karo markastana uu ka soo noqon karo xubin kamid ah kobciye iyo inuu qofka si xor ah oo volunteer ku soo galo oo haba yaraato wax jojob iyo midna aysan jirin qodobka labaad waxa waaye waa in dadkaasi ayaga ay ismaamulaan markay xubnaha ku soo biiraan ayaga inay ismaamulaan oo isdoortaan ayaga isdooranaya ayaga ayaa dad team ayaga kamid ah ayaa isdooranaya kadibna maaragtay waxa soo baxaya dad madax ay sameysanayaan ama gudiyo dadkaas ayaa meesha u maamulaya waxay kaloo jira dhaqaale siman ay isku darsanayaan dadkaas oo midka taajirka iyo midka faqiirka ahi ay ku wada qayb qaadanayaan si siman ay lacagtaas u qayb qaadanayaan $1 aan soo sheegnay waa qofka ugu sareeya iyo qofka ugu hooseeyaba $1 ay qaadanayaan ama qofka ugu maaragtay wax kala sareyn la yiraahdo ma jiraan qofka ugu saboolsan iyo qofka maaragtay hodantinimsan inay wada sameeyeen dhinacaas oo qof kasta $1 laga ogol yahay oo kaliya ka badan aan laga ogolaanin ka yarna aan laga ogolaanin waxa qodobka afraad waxa waaye madax banaani iyo ismaamul oo independent macnaha waxa qodobkan English ahaan wuxuu leeyahay autonomy and independent dabcan af Soomaaliga idinka ayaa yaqaan oo fasiri kara yani inay ismaamulaan oo xor ay ka yihiin wax kasta oo faragelin ah oo banaanka uga timaado ayaga is dooranayaan ayaga ismaamulayaan ayaga ay wax kala iibsanayaan qaab noocaas ay u dhisan tahay kobciye qodobka shanaad wuxuu ku dhisan yahay waxbarasho tababaro iyo xog wadaag oo free ah oo qof kasta oo xubinka ah uu ka dhaxeelaya meesha iyada ah waxa kaloo jira qodobka lixaad inuu ka hadlayo wada shaqaynta iskaashatooyinka kale ama cooperation among cooperatives macnaha in cooperative-yada ay soo caawiyaan oo wax kala iibsadaan aqoon isweydaarsadaan yani technology isweydaarsadaan macnaha that's why ay International Cooperative Alliance ay u noqdeen dalad guud oo caalamka oo dhan ay isugu yimaadaan oo malaayiin iskaashato oo adduunka oo dhan ayaa ku jira sanadkii hal mar ayay shiraan assembly-gooda maxay tahay waa la isweydaarsadaa aqoonta la isweydaarsadaa wax kasta la kala iibsadaa yani cooperative markuu cooperative kale wax ka iibinayana wax raqiis lacag raqiis uu iibiyaa uguma iibiyo sida suuqa caadiga wax quality isibsan aqoonta isweydaarsadaan way isdifaacaan marka waxaas oo
dhan ayuu leeyahay International Cooperative Alliance uu sameeyay oo service ah marka kobciye insha Allah way ka mid noqonaysaa member ka mid ah ay noqonaysaa biidhnillaahi kariim qodobka toddobaad oo ugu dambeeya waxa waaye u adeegida bulshada ama community concern in ummadaasi ay baahi tirto oo inaad baahi tirto oo wax alla waxay dadkaas u baahan yihiin wadooyin ha noqoto nadaafad ha noqoto guryo ha noqdaan dhismayaal ha noqdaan waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqdo waxaasoo dhan maaragtay inay free ay ku bixiso cooperative-ka oo dadkeeda xubnaha iyo dadka kaleba ay gacan weyn ka siiso arrimahaas waan arkayna insha Allah haddaba kobciye ujeedooyinkeeda muxuu yahay particular hoos aan soo daagdegno kobciye cooperative ujeedooyinkeeda muxuu yahay ujeedooyinka kobciye cooperative waa 6 ujeedo tan koowaad waxa waaye inay baabi'iso faqriga insha Allah waan arkaynaa biidhnillaahi kariim faqriga 10 sano gudahood in Soomaaliya isbedel weyn oo muuqda in laga waayo bal aan rajaynayno qaabka hadda aan ku socono markaan ku sii socono ilaahayna noo hagaajiyo sida aan rabnaa ilaahay uu nooga dhigo inay kobciye noqonayso mid u gurmata wadamada kale adduunka intay Soomaali weydo qof ay u gurmato ay wadamo kale u gurmato insha Allah biidhnillaahi kariim kobciye waxa kaloo sharafta Soomaaliga ah ay ka shaqeynaysaa si ku soo celiso maadaama adigu aad maanta faqiir tahay يعني تهي ما أعرف قف يعني إزدله دد نعب دد علين قبيالات قرن وحول بإذا كل حجرو أبار أدوك شرفكم الذين لكن هدي أنت أي بابان شرفت هذه آيات صلى الله عليه وسلم بإذن الله كريم قضبك سدحات مالجلين تخيرات كدالك إن شاء الله مشاريع فربنا أي مالجلنسا وأن أركزا إن شاء الله جدود بقلال مشاريع كبعية أي أسميسي بإذن الله كريم قضبك كلا وحواي كرو قاعدة دقالها جود مر هدي دقالي ودنك اللي مالجلية أو خيرات ودنك الصوصاري أو أدونك اللي يعني سوق جيي معناها ماشي وحكى سوق اللي سلعك أذك ودنك دقاليس أي كرو كعاي بل individual even community يدك مع society إنه قف والبا وجوني معرفة يعني ونقض قف هذا بإذن الله كريم هرمارينتا deegaanka iyo maaragtay iyo nolosha guud ayaa maaragtay kobciye xoog ay saaraysaa kobciye waxay ka shaqeynaysaa nadaafada waxay ka shaqeynaysaa caafimaadka waxay ka shaqeynaysaa waxbarashada waxay ka shaqeynaysaa maxaan ku yiraahdaa maxay too inay geeda malaayiin geeda ay abuurto sanad walba oo ay deegaankii rasmiga ahaa ay ka dhigtay meel evergreen ah insha Allah biidhnillaahi kariim kobciye waxay aad iyo aad ugu shaqeynaysaa dhinaca socialka oo ah tayeynta caafimaadka iyo waxbarashada caafimaad free ah oo xabad kan in xitaa aadan iibinaynin iyo waxbarasho oo free ah oo xal qalin xitaa aadan iibinaynin ayaa insha Allah waan arkaynaa biidhnillaahi kariim mashruucaas insha Allah 5 sano gudahood ayaan rajaynaynaa asagana taas inuu hirgalo haddaba kobciye qaabka isku maamulayso aan si fiican u wada fahamno intaanan aadin qaabka dhaqaalaheeda iyo say dhaqaalaheeda usoo galayo kobciye qaabka isu maamulayso kobciye nidaamkeedu waa nidaam habaysan qofna qofka kale wax dheerayn oo dadka ay wada sameeyeen wuxuu leeyahay general assembly wax la yiraahdo ama gole guud oo sanadkii hal mar shiraya oo 3 bilood laga yaabo shirkood inuu gaaro oo wax walba oo kobciye mashaariic ha noqoto budget ha noqdo sharciye ha noqdo approve gareynaya ama ansixinaya ay leeyihiin sanadkii hal mar shiraya ayaga ayaa marka waxay soo dhisayaan kolaxda ayaga marka si ku imaadaan waa dad horta kaadiriin ah dadkaas kaadiriinta ahi yani waa qofka meesha imaanayo waa inuu ka yimaado horta degmo walba oo Soomaali ku taala oo xubnaha ay degan yihiin qof bay soo dooranayaan ha noqoto jigjiga ha noqoto Kismaayo Jowhar Garbaharey maaragtay Gaalkacyo maaragtay Laascaano Doorsamareeb meel kasta oo maaragtay Soomaali ay degan tahay ayaa maaragtay ay ka imaanayaan xubnahaas dhowr qof baa laga yaabaa degmo walba inay iska soo sharaxdo ama deegaan walba markay dadka soo sharxaan qofka soo sharxay shuruudo leeyahay waa inuu diin leeyahay waa inuu maaragtay amaano leeyahay waa inuu sumcad leeyahay waa mujtamac dhexdiisa sumcad ku leeyahay oo blackmail uusan ahayn oo criminal ahayn waa inuu maaragtay aqoon leeyahay waa inuu diin leeyahay waa inuu amaano leeyahay waa inuu khibrad leeyahay waxaas oo dhan ku jira marka qofka shuruudaha soo buuxiya amba soo sharxay horta qof kale ma soo ceebeynaya dadkana ma soo dooranay qof xun qofka markaas ay isku soo raaceen oo qofka u fiican ah ay soo dooranayaan qofkaas ayaa imaanaya halkan wuxuu imaanaya
member of maaragtay general assembly inuu xubin ka mid ah golaha guud uu ka mid noqdo golahaasi guud ayaga ayaa marka ay kobciye ay dhisaan iyo haykalkii kobciye guud ahaan waxay soo dooranayaan guddiyo sida guddiga sharciga board of directorka guddiga maaragtay xisaab xilma leh guddiga boorka wuxuu dhisayaa executive-kii u dhisayaa iyo departmentiyadiisii oo dhan maaragtay qaabkaas markuu soo dhisa qaybtii financiga maaragtay kulli marka intaan boorka ka ahayn wixii ka hooseeya imtixaanay ku imaanayaan iyo interview ay soo galayaan marka qaybtan kore muxuu ahaa halkan qofka halkan maaragtay fadhiya imtixaan uu ku imaanaya ama boorka ayaa soo dooranaya hadba si ay maaragtay u suurtoodo boorkan wuxuu isaga executive-kan oo dhan ayuu maamulaya executive-ku waa sii ballaaran karaa executive-ka department-yadan kale ayuu samaynayaa maalan haddaan kuu sharxo waaxda maaragtay mashaariicda waxaan ka wadnaa qayb waxaa jiri doonta oo maaragtay project implementation unit la yiraahdo oo inay projectyada ay fuliso oo ay implement garayso ama ay dhaqaajiso keliya shaqadeeda ay tahay laakiin ayada project ma abuurto project wuxuu ka imaanayaa qaybtan research and development ama cilmi baarista qaybtaas ayuu ka imaanaya مثلا qaybtaas waxay soo daraasaynaysaa maxaan ku yiraahdaa warshad yani waxay leedahay مثلا waa maxay waxyaabaha balkiga wadanka la keeno sida sokorta maaragtay waxyaabaha lamida maaragtay shamiindada alwaaxa yani waxyaabahaas ay sokorta le sokorta wadanka ma ka baxda ha warshadii xagga laga helaa meel hebel waa imisa inta qasabka imisa ku filan intaas intuu ka baxa meel hebel daraasadaas oo dhan markay soo dhameeyaan oo qiimihii ay soo dhameeyaan iyo project waxa ku kacay durationkiisa wixii soo dhan ay soo dhameeyaan ay waxay u gudbinayaan general assembly-ga markuu soo waxay u gudbinayaan boorkan u gudbinaya ama executive-ka boorka u gudbinaya boorkan wuxuu u gudbinayaa general assembly markuu soo approve gareeyo dib uu soo laabanaya qaybtan waxa loo dhiibaya project implementation unit-ka saas ayuu mashaariicda ku soconayaan structure-kii marka structure la isku xadgudbaya maahan transparent way adiga waxa ku jooga meeshaas qof aad soo aamintay oo adiga aad maaragtay gacantaada ku soo dooratay haddaba mashaariicda iskaashatada kobciye ay maalgelinaysa mashaariic kobciye aad bay u tiro iyo tayo badan yihiin waxaana ka mid ah weyn oo qof kasta oo kobciye member ka ah oo ka iibsanayo wax alla wixii baahidiisa ah qofkaasi isaga ahi waxaa loo baahan yahay biilka bisha markuu adeeganayo halkaas ayuu ka adeeganayaa wax alla wuxuu u baahan yahay meesha jiraan waana raqiis oo aad iyo aad u jaban tahay oo lacag aad u yarna kobciye ay saaranayso kobciye lacagta ay saaratan asaga qofka ay ku soo laabanayso faa'iidadaas asaga ay u abuurayso maaha kobciye inay qaadanayso faa'iidadaas meesha ka soo baxdo qofka memberka ah ee meesha ka adeeganaya asaga ku soo laabanay lacagtaas iyadahay maaha qof oo maaragtay yani kobciye mid oo u shaqaynaysa maahan inay faa'iido abuurato iyada shakhsiyan oo kobciye ahaan ay faa'iido u abuurato laakiin dadkeeda xubnaha ka ah ay faa'iido u abuuraysaa kobciye laakiin markas waxay maalgelinaysaa faa'iidadaas ma maalgelinayso waxay maalgelinaysaa lacagta kabitaalka ee nus dollarka ah ee bil walba soo gelaya waan arki doonaa kobciye waxay maalgelinaysaa beeraha oo ay nooc oo beeraha ay maalgelinaysaa cilmi baaris qayb weyn oo center ayay samaynaysaa oo central cilmi oo beeraha ku saabsan waxay keenaysaa dalagyo kasta oo cimiladeena ku bixi kara adduunka ka baxa maaragtay wadankeena aan weli lagu tijaabinin ayaa maaragtay la beerayaa sida tufaaxa canabka noocyadiisa kala duwan avagaadaha waxyaabahaas oo dhan Soomaalida ma beertaan oranjada waxaas oo dhan ayaa wadanka la keenaya marka insha Allah wadanka horumar fiican ayuu xerooyin digaag oo lagu dhaqaalay digaaga ukuntiisa iyo wixii la halmaalo waxay maalgelinaysaa xoolaha iyo wax alla wixii warshado ah oo wax soo saarka xoolaha ka shaqeeya sida maqaarka maxaan ku yiraahdaa jiiska yogurtka caanaha caana booraha waxaasoo dhan hilibka waxaasoo dhan waxaa laga soo saaraa xoolaha warshadihii samayn lahaana kobciyo way imaanaysaa xoolihiina way horumarinaysaa yani sida loo interesting waa kobciye bank wax la yiraahdo bank weyn oo kobciye ay leedahay oo intaasoo malaayiin oo qof ay leeyihiin oo account ay ku leeyihiin oo memberska ah oo isla markaana maalgelinaya ay nooc oo mashruuc maalgelinaya oo diyaar u ah inuu maalgeliyo
waaweyn oo dhismayaal ah oo guryo ganacsi ama deegaan ama maaragta waqaf ah oo qof walba oo xubinka ah oo guri helayo oo damiin aan lahayn damiinkiisa waxaa ka ah nus doolarkii lacagta u baxsado bil walba maalin walba u baxsado ayaa ka ah damiinka loo baahno deynteedana sanooyin fara badan ha ku qaadato inuu iska soo gudo wax dhibaato ah ma laha kobciyo waxay maalgelinaysaa warshado sida warshada sokorta warshada suufka warshada dharka warshada maaragtay shamiindada ay nooc warshada ay maalgelinaysaa kobciyo insha Allah oo lacagahaas faraha badan waa arki doontaa maalgelinaysaa maraakiib waaweyn oo warshadahooda wata oo يعني ودنك la keeno oo markii jalaabtaba warshadii uu hore ka gelinayo isla markii warshadeynayo isla markiina baakadeynayo isla maalinta iyada insha Allah kobciye warshada maraakiibtaasi waa 10 milyan hadda markuu yahay 100 tan markuu maalinta ku jalaabanayo oo ku boros gareynayo waa 10 milyan meelahaas oo kale taa marka kobciyana lacag fara badan maalin walba soo gasha iyo bil walba marka way awoodi kartaa inay iibsato ilaha dhaqaalaha daba iskaashtada kobciye iyo faa'iidooyinka ay soo baxay ka soo baxaya ambal isla fiirino waxaan niri sanad walba capital cusub ayaa soo galaya nus doolarka waa mid aan istaagaynin waa weligiis aliis waa soconaa nus doolarka sababtoo ah nus doolarkaasi markasta oo ku kordho adayda kugu jirtaa capitalkaaga ayaa kordhaya markasta oo nus doolar ku darto capitalkaaga kordhaya markasta oo capitalkaaga uu kordhana mashaariicda la maalgelinaya ayaa badanaya mashaariicda la maalgelinaya markay bataana oo xubnihiina ay soo bataana waxaa imaanaya in adiguna faa'iidadaada sanadba sanadka ku dambaysa ay kasii badato kii hore ay kasii badanayso marka sanadka ugu horeeya tusaale ahaan aan soo qaadano kobciye waxay rajaynaysaa inaan helno 50,000 oo qof oo xubinka ah kobciye inaan helno haddayba ka badanba saadaasha inay ka badan doonto laga yaabaa mar sanadkan gudihiisa hadda aan ku jirno 22 ah inaan 50,000 aan ka badanayna ayaan aaminsanahay insha Allah marka 50,000 markaan helno oo nus dollar aan ka qaadno qof walba maalintii oo bishii aan ku dhufano kadibna 12 bil aan ku dhufano waxaa meesha ka soo baxay 9 milyan oo dollar oo dakhli ah sanadkii ayaa kaga soo baxaya 9 milyan haddii aan u qaybino min 3 mashruuc oo min 3 milyan ah yani tusaalaan ka wadnaa mashaariicdu waxaa laga yaabaa inay ka badato oo 4 milyan 5 milyan 1 bilyan inuu noqdo mashruuc dhici karta haddii la gelinayo mega project oo kaleeto sida projectyada aan rabno insha Allah hawada noogu jiro oo maaragtay sida mashaariicda maaragtay korontada oo kaleeto iyo biyaha oo si koronto iyo biyo bilaash loo helo oo qof walba u helo yani waa ku jira qorsheena marka mashruucan waxaan hadda tusaale aan waxaan ku wadaynaa presentationkan inaan mashruuc walba uu 3 milyan yahay mashruuc walba inuu 3 milyan oo dollar oo ku kacayo qiimihiisa ayaan ku maalgelinaynaa marka 9 milyan anagoo haysana oo 3 mashruuc ayuu noo goynayaa marka 3 mashruuc yani aan maalgelinay sanadkan marka mashruuc walba markaan faa'iido ahaan 20% aan ka helno faa'iido ahaan marka 20% aan ka helno sanadka faa'iidadu waxay noo noqonaysaa 1.8 milyan dollar waa 1 milyan 800 oo kun oo dollar sanadka labaad xubnaha waxay noqonayaan aan rajaynayno insha Allah waa 500 oo kun oo qof sida maaragtay ama half milyan sida rajada ay tahay inay ka badatan waa dhici kartaa sanadka labaad 1 milyan bal la gaaro sida xawliga ay ku socota markaan fiirinay daraasad aan sameynay laakiin anaga sida ugu hooseeya ayaan ka soo qaadanaynaa insha Allah tiraan marka dakhliga soo noqonayo waxay noqonaysaa 90 milyan iyo 9 milyan ee hore ee capitalka hore kugu yiilay iyo 9 milyan oo cusub oo sanka asaasmay oo sanka yani la aruurshay labadaas marka isku darto 99 ilaa capitalkaaga hore waa yaala capitalkaaga hore wuu shaqeynaya capitalka cusubna kii hore ku sii darsamaya marka 99 milyan ay noqotay 99 milyan imisa marka 3 milyan loo qaybiyo imisa mashruuc ay abuuri karaan waxay abuuri karaan 33 mashruuc oo cusub oo kuwii hore aan ahayn kuwii hore faa'iidada ku socoto oo 1.8 milyan ka ahaa ayadoo ku socoto ayaa haddana tan faa'iido kale ay ku cusub ku abuuraysaa oo ah 19 milyan 8 milyan cusub ay ku abuuraysaa ilaa mashaariicda hore way socdaan faa'iidadu way ku socotaa ka cusubna saas oo kale faa'iidiisa uu ku socdaa faa'iidadaas lama maalgelinayo sanadka ku xigo saddexaad waxaan rajaynaynaa 1 milyan meeshaas waa iga yara qaldantay 1 milyan waaye maaragtay maahan 100 milyan maahan 1 milyan waaye 100 kun maahan
waa 1 milyan waaye oo commiyanka iloobe sorry marka meeshaas iyada ahi macnaha halkaas milyan markaan gaarno waxaa imaanaya lacagta dakhligana soo galayso iyo macal lacagtii hore ee 9 milyan ahaa waxaa noo imaanaysa 279 milyan oo dollar oo ku jirto capitalkii hore ee 9 milyan ee sanadkan soo dhaafnay waxay abuuraysaa markaan u qaybano 3 milyan 93 مشروع أو عصب أو عن أهين مشاريع ذي هر وجرت من صد سجال مشروعها من معرف سدح مشروعها عن أهين أي كو أبور ما أو عصب أو أيضا فائدة بقول كي بلاباتن مركز كل فسته أي كو أبوريسو كونتن إشان مليون لبع سداد بقول أو كونو دولار يعني كو أبوريسو أي معرفة ماشي كذا صوب حياة سنة والبمرك فائدة ذوي بدنيسا كابيتال كاغ واسي بدنايا حب النمدي واسي بدنيسا مركو وح خيرات اسكف الشخص أو أن استاجين أيون قرية سنة كوحي 2 مليون هدان قارنو حبلون 2 مليون مركان قارنو حبلون يعني لعقتو حي نقونيسا أو دخلقة 609 مليون oo ay ku jirto 279 milyan ee hore ee sanadkii aan soo dhaafnay imisa mashruuc abuuray min 3 milyan markaan u qaybino 213 mashruuc oo cusub oo sanadkaas afraad imaaday oo aan ahayn mashaariicdii horena gooni ay ka yihiin ayaa meesha ku soo baxaya asagana wuxuu ku abuurayaa sanadkan 127.8 milyan oo dollar oo cusub oo faa'iidooyinkii hore aan ahayn faa'iidooyinkii hore markasta way socdaan ayagoo socdo faa'iidooyinkii hore ayaa faa'iido cusub kale sanadkaas ay kugu soo darsoomaysaa markasta yani adigana capitalkaaga waa sii kordhaya faa'iidadaada waa sii kordhaysa marka waxaasoo mashaariic ah ayaa kobciya sanad walba ayaa asaasaysa waxay kana timid $1 oo qura oo adiga qijaabkaaga markaad ku jirana aad faqiir tahay oo marka aad isku darsataan macno weyn sameynaya ayuu ka yimid oo hadduu kaa loo mixta aad maaragtay yani ka qoosan kartid ama ka safri kartid haddaba supermarketkan faa'iidooyinka uu soo saaray aan fiirino supermarketka waxaan nidhi 2 milyan oo qof oo ama 2 milyan oo qoys ayaa ka adeeganaya 2 milyan oo qoys markay bil walba ka adeegtaan oo qoyska isku jaab maahan dadka $1 oo bisha iyo qof wixii ka yar ilaa konton waxay qof saaqada ilaahay ugu fidiyay marka hadii average ahaan u soo qaadana min $250 inay bil reer kasta bishaan sanadkii oo 2 milyan oo qof yani reer walba $250 ay bishaan oo 250 kana meesha ay ugu adeegtaan kobciye dabcan biilka ka soo waxaad arkaysaa kobciye ee supermarketyada iyadoo maaragtay qof kasta uu iska soo galayo oo intaasoo shay uu adeeganayo $10,000 hal mar adeeganayo ayaad arkaysaa marka lacagtan minimum $250 lacag aan ku sheegayo waa minimum way qofku uu wax ku adeeganayo bisha marka bishaas oo 250 ku adeegto oo ku dhafato 2 milyan oo qoys waxa dakhliga oo bishaas uu noqonayaa $500 milyan oo dakhli ah oo kobciye soo galay dukaamadeeda dukaankaas meel walba oo xubnaha degayiin ayuu ka furan yahay marka aan 20% ku dhufsano oo faa'iido ah $100 milyan oo bil walba ku soo galayso ayaa meeshaas ka soo baxaysa haddii dakhligaas $500 milyan aan sanadka ku dhufano 12 bilood waa $6 bilyan ayaa sanadka ku soo galaya dukaanka kaliya $6 bilyan oo dakhli ah marka aan faa'iidada 20% oo 100 milyan 12 bilood ku dhufanana ayadana waxay noqonaysaa 1.2 milyan macna waa 1 bilyan iyo 200 oo milyan oo dollar oo faa'iido ah lacagahaas oo dhan aday kugu soo laabanayaan mid meel kale aadis maan lama maalgelinayo lacagtaas cid maalgelinaysa ma leh lacagta la maalgelinayo waa lacagta capitalka $1 waa wax la maalgelinayo laakiin lacagta yani ay abuuraan lacag la maalgelinayo maahan qofkay ku soo laabanaysaa marka taa loo kala faago markaan ogaano haddaba tusaale yar baan rabaa inaan halkan idinka tuso yani qofkii halka qof wuxuu bixiyay $180 macnaa $1 maalintii markii sanadka lagu dhufto waa 180 qofka dhintay marxuumka aan marka aad ka bixiso 180 kale 360 isku noqonaysaa marka sanadka 360 isku noqonaysaa lacagtaas mesela mashaariicdu way tira badatay mashaariic fara badan ay maaday lacagta marka 350 waa ku shaqo galay
shaqo ku bilaabay marka lacagta markay shaqo gasho ay bilowdo faa'iido abuuraysaa bil walba faa'iido abuuraysaa way sii kordhay faa'iidada ila mashaariicda tira badan mashruuc kastaba intaas oo walaxa kaaga soo baxay oo faa'iido ah oo nus dollar kastaba intaas ku dhala marka ugu dambeyntii marka ay مثلا gaarto $5,000 oo faa'iido ah oo macallafii ay ku jiraan معناها فائدة لفي واجون لكن فائدة مركي $500 أي جارتو $5,000 وحلا جرايا بقول $8 نص دولار كعصبها إلا نص دولار كوحنا نون ستوب واي ما استاجيو نص دولار ما استاجي ولي سوا صعنا يعني نص دولار كوحنا كو باجنا عادي كان فائدة كو جرتو أو كابيتال كا كو سيكورنايا مركز أو بقول سيدات عصبها كو درتو مركز العقد هذه فائدة ده هيد أي لو مرنا هاي مركز لكن العقد بقول سيداتك فائدة أوتوماتيك اللي جرا كدمنا كابيتال كاجي أي الجو درا مدي درك مرحوم كان مدى الجو درايا قفك معركتي نول معركتي العقد كابيتال كا أي الجو درا بقول سيدات faa'iidada laga jaray faa'iido soo hartay marka lacag soo hartay faa'iido soo hartay qofka nool jeebkiisa faa'iidadiisa aadaysa waa loo kala jaraa qofka dhintayna waxay aadaysaa sanduuq la yiraahdo sadaqa jaariya sanduuqaas ay aadaysaa laakiin qofka dhintay asaga jeebkiisa aadaysaa taas waa isku dhamaatay haddaba qaybtaas interesting ah qaybta sadaqa jaariyada waxa waaye lacagtaas 2320 ka ahayd ee faa'iidada soo baxday ee sadaqa jaariyada timid sanduuqaas ku soo shubantay hadii dadkii ay marxuuminta ay 1 milyan oo marxuum u yahay oo aad mid kastan u faa'iiday 2320 u faa'iiday waxa ku soo baxay lacag ah 1 bilyan iyo 50 milyan oo dollar sanad walba oo lacagtaas ay si badanayso sanad walba sanad ku xigo waa si badanaysa waa si jabbaar mise laba jabbaar way taqriiban ma ahan boqolkiiba 5 iyo waxaas ma laba jabbaar way sanad walba 1 bilyan iyo 1 bilyan iyo 50 bilyan sanadka ku soo bax sanadku ku xigo waa 2 bilyan iyo 100 milyan oo dollar way waa 2 bilyan iyo 100 milyan oo dollar noqonaysa ku xigo sababtoo ah lacag dheeraad ayaad ku dartay mashaariic cusubna waa si asaasmeen dadkii oo xubnaha ka ahaa ama han noqdaan dadkii dhintay ama dadka nool way soo zaa'ideen lacag zaa'id ayaa meesha kaaga soo bixayso markasta marka lacagtaas maxaa lagu sameeyaa lacagtaas waxaa lagu maalgelinayaa iskuulo oo high standard oo kobciya schools la yiraahdo jaamacado oo high standard oo kobciya jaamacadeeda ah waxaa laga bixinayaa salary oo high paid macallimiinta oo maanta la liido 100 ilaa 200 la siiyo ayaa waxaa laga yaabaa inay qaataan 3,000 4,000 dollar bishaar ah marka macallinkaas inuu hagar baxo darteed yani jaamacadaas iyo iskuulaadka qalabkoodii oo dhan waa loo dhameystiraa biidhnillaahi kariim kobciye waxaa laga bixinaa qaybtaas sadaqa jaariyada kobciye waxay kaloo maalgelinaysaa isbitaallo waaweyn oo high standard ah waxay sameynaysaa waxay dhakhaatiirta maaragtay salarigooda ayaa la isbitaal waxay la imaanaysaa xitaa isku maaragtay warshado daawooyin sameeya ay la imaanaysaa cilmi baaris dhinacaas daawooyinka ay sameynaysaa warshadihii daawooyinka ay la imaanaysaa marka wax walba meesha waa sii soconaysaa masaajidada lagu maalgelinaya waxaa lagu maalgelinaya madaaristii waaweyneed oo quraanka iyo diinta lagu baranaya waxay maalgelinaya wadooyin waxay maalgelinaya xitaa uniformka dharka lagu tolo oo ardada ay qaadanayso yacni warshadaha lala imaanaya iyo qalinkii iyo buwaagtii kulli maaragtay ceelal biyo oo meel kasta oo ceel biyo laga qodo oo abaar ay ka jirto si abaar dambe aysan noo saameyn marka intaas ay dhacdo waxaa ku soo baxaya adiga marka waxbarasho free ah iyo caafimaad free ah oo halkan in xitaa gadimis sababtoo lacagta sadaqa jaariyada ahayd ee dadkii maaragtay marxuuminta ahaa ayaa waxaasoo dhan ku sameeyey marka adiga waxbarasho adiga ubadkaagaba waxbarashan lacag in kaga bixayso xitaa qalin iibinaysid caafimaad xitaa halkan in lacag kaga bixayso waxa kaloo intaas dheer waxay maalgelinaysaa kobciye biyo waaweyn oo warshadahooda wata oo ceelal ah oo maaragtay biyaha suuliga xitaa inaad cabi kartid oo saalix lishurba ay noqdaan oo biyo moysaxa ay noqdaan biyaha aad ku qubaysanaysid ayaa maaragtay kobciye ay awoodi kartaa inay maalgeliso sanooyinka soo socda hadba priority si loo kala sameeyo kobciye waxay maalgelinaysaa koronto oo maaragtay oo megawatt maaragtay gigawatt oo maaragtay oo fara badan oo qoraxda iyo maaragtay laga sameeyo dabaysha oo qof
qof walba oo maaragtay Soomaali markaan u helo koronto free ah iyo caafimaad free ah biyo free ah waxbarasho free ah meesha kaaga soo baxo marka waxaas oo dhan waxa faa'iido qofkii qabriga ku jirayna qabrigiisii baa u nuuraya oo Ilaahay ugu nuurinaya waxaas oo sadaqa ah qofkii qabriga ku jiray qabrigiisii baa Ilaahay ugu nuurinaya ajirkii meeshuu ka helaya marka qofkaas soo ma taajirin asagoo dhintay oo waxna qaban ayuu qabrigiisa ku dhex taajiray qofka noocaas ah kelmadaas ayaa ahayd tafsiirka kelmadeedii ugu horeysay qofka dhintay ayaa iyo qofka nool ayaa taajiraya kobciya taajirka dhigaysa kelmadaas ayaa ahayd marka gunaanadkii kobciya inaan hadafkaasi gaarno oo waxaasoo barwaaqo aan gaarno oo $1 oo waxba naga dhimaynin aan ku gaarno waxaa ka horeeya waa inaan isku kalsoonaano isna aamino waa inaan rabbi subxaanahu watacaala u dhowaano kana cabsano waa inaan issaxno isna cafino waa inaan hal hadaf oo cad yeelano waa inaan sharci ixtiraam iyo kala dambayn aan yeelano waa inaan cadaalad iyo sinaanshaha xuquuqeed ee qof walba uu leeyahay aan ilaalino marka kobciye meel fiican ay maraysaa hawsheeda way socotaa waa nagala soo xiriiri kartaa insha Allah cinwaanadeena hoose ee aan soo sheegi doono bidnillaahi kariim wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh